xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle oo maanta kulan yeeshay ayaa waxa ay sacad uga soo horjeesteen xubnihii wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowliyaasha uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayagoo sheegay in uu la tashi la'aan uu soo magacaabay xubnahaasi misana aysan ogolaan doon in xubnaha madaxweynaha uu soo magacaabay ay u cuntanto waxaana xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle kulankani ay si isku mid ay kaga tilmaameen in ay ka soo horjeedaan fikirka madaxweynaha ee la tashi la'aanta ku yimid waa sida ay hadalka u dhigeen misana aysan ogolaan doon ansixinta golahaasi wasiirada ee madaxweynaha uu soo bandhigay kulan ay xildhibaanadu yeesheen ayaa waxa ay ka yiraahdeen sida laakiin wixii uu shal madaxweynuhu sameeyay xildhibaanada Hirshabelle waa ka soo horjeesteen waa u jeedin waa marqaati cad oo adduunka oo laga booqaa maanta wala waa arkaysiin saas darteed waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Cali Cabdullaahi Cosoble maalmaha soo socda haddii alla idmo in loogu dhawaaqi doono madaxweynaha hore Hirshabelle waxaan rajaynaynaa in ay banaanatay kaalintaas raggi gali lahay oo musharaxiin tahay inay galabta fiirsanayaan soo diyaar garooba Hirshabelle madaxweynaha jaga ka banaan konton iyo laba wasiir oo indhala'aan lagu soo dhisay oo dhegala'aan lagu soo dhisay ayaa lagu dhisay meeshaan taasna baarlamaanku waa diiday mana qaadanayno wax la qaada karana ma ahan waxaan halkaan ka jeedinayaa marka ugu horeyso madaxweynaha wuxuu soo saaray wax ma garanaysaa adduunka ka jira ma aha sababta ay tahay Mareykanka ayaa ugu xoog badan xoog ilaah baa iska leh Mareykanka xataa 50 wasiir kama jirto marka sidaas darteeda waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi in oo ma garanaysaa arintaas ayada ah oo ku xidgudbay mana ka yeeli doono waxaan soo jeedinayaa oo 5 iyo 6 ka xildhibaan ee halka fadhisa iyo ragga kale oo nagu soo biiri doono iyo ragga kale oo dhigasa doono ummadda Soomaaliyeed dhigasa doonto ummadda labada gobol ee hadii ka dhigasa doonto barnaamijkan inay ka wada hortagaan ee qaybtooda ka qaataan soo u dumi lahayn barnaamijkan uu dhisnaa lahay ay gacan nagu siiyaan anaguna horseeda u noqonaynaa Cabdifataax Axmed Maclow Cabdifataax Zaki telefishinka caalamiga ee Bulsho Jawhar